bishan aan ku jirnay sagaalkeedii ama September sagaalkeedii 2025 waxaan macasalaamadeenay Shaka Imperi oo ahaa mid ka mid ah libaaxidii ugu qaalisanaa ama ugu qiimaha badnaa ee ay diiwaan gelisay ama la record gareeyay taariikhaha. libaaxaasi in badan waxa laga sheekeeyay documentary iyo dhacdooyin iyo qisooyin isaga ku saabsanaa. koolishikooga waxa la dhihi jiray Imperi isagiyo walaalkii oo la dhihi jiray Zigzag. waxayna ahaayeen laba aar oo xukumayay ama maamulka hayay 6 sano iyo waliba dhowr bilood. Shaka Imperi iyo Zigzag Imperi waxay ahaayeen laba libaax oo calaamad u ahaa adkaysiga, dulqaadka iyo maamulka iyo geesinimada. waxayna soo maamuleen raxano kala duwan oo ay kaga tageen isla ubad yar, caga baruuro, kuwa dhidig iyo kuwa laba. magacooga way reebeen, dagaal hore ay soo galeen inta badan guulo ay ku soo hooyeen. shalayna waxay ahayd waqtigii adduunka macasalaamadeyay. geesi kamid ah geesiyadii ka dagaalamayay isla doorka ama wax ka soo gudbin jiray. dadka qaar waxay u ahayd ama dadka dhaka wildlife wax ka soo gudbiya waxay u ahayd maalin madow oo ay soo xidheen buug dahabi ahaa oo uu soo dhigay ama taariikh dahabi ahayd oo uu far waaweyn ku soo qoray isla Shaka Imperi. libaaxan hore mu maqashay Shaka Imperi mise maanta ayaa kuga horeysa. waana ciwaanka maanta lagaga hadlayo social media iyo meel kasta oo xayawaan lagu soo bandhigo. qisada Shaka Imperi inaan ka soo hadlo ayaa rabaa isagoo dhacdo ah ama documentary-giisa si tallaabo ah. Shaka Imperi haddii aad is leedahay soo tibintiisu wax muhiimada ayaa ku jira ama wax faa'iido ayaa ku jira, wax badanna ku ogow haddaad is leedahay ira fariin ah soo gudbi isagoo dhammaystiran. anaguna hadda ayaan howlgalayaa kadib markaan ogaado qaabka loo rabo iyo interestiga uu leeyahay. ira fariin ah hore ugu soco ama soo gudbi ama soo dhammaystir. aad baad mahadsantahay ku xidhnashada beeshka. Assalaamu calaykum.